السلام عليكم waxaan ku soo jiray bilowgii hijradii oo jeedii bilaabanaysa oo xalqadii imika u dambeysay dhowr qof hijradii baan ka soo sheegnay xaqadana maanta insha Allah waxaan ku qaan doonaa qaabkii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam u hijrooday dabcan rasuulkuna marka uu Makka u ka soo hijroonayay Madiina u imanayay rasuulku wuxuu ahaa oo la oran karay xataa wuxuu ahaa qofkii ugu dambeeyay ee soo hijrooda isagoo markuu soo hijroodana kaliya waxa marka uu Makka ka hara caruurta iyo dumarkii dhammaan ragii kale ee awood lahaayeen dhan rasuulka way ka wada hor hijroodeen dhamaantood haddaba intaynan hijrada rasuulka inaan u gelin marka hore waxaan soo qaadanaa hal qiso oo kale oo qof isagoo hijroonaya oo ah Umar bin Khattab inkastoo qisiis kooban tahay haddana inay tusinaysa geesinimadii Umar bin Khattab marka Ali arinta ka sheekanaya waxa uu yiri ma garanayo qof hijrada sameeyay oo si la wada arkayo isagoo la wada arkayo hijrooday marka laga reebo Umar bin Khattab macnaha dhammaan saxaabada kale markay soo hijroonayeen qaab sir ay ku wada hijroodeen Umar marka laga reebo mooyee Umar isaguna markii uu doonay inuu hijroodo uu istiyaariyay uu labistay xataa dharkeedii lagu garnay qofka inuu baxayo uu xidhay qalabkiisa dagaalkana uu xidhay markaasna Kacbada yimid wuu dawaafay Kacbada markuu dawaafkii u dhameystay ayuu dadkii ogeysiis u sheegay oo ku yiri markaas ayuu yiri reer Makow qofkii doonay inay hooyadii caawa gablanto ama qofkii doonay in caruurtiisu ay agoomoobaan ama qofkii doonay in xaaskiisu ay carmar noqoto ha berri waan safrayaaye dooxada halka timaada ha igu yimaado Umar bin Khattabna sida markuu u hadlay dadka u sheegay inuu berri u Madiina u hijroonayo challenge-ga uu sameeyay ama taxadiga uu ku sameeyay uu yiri halka waa ka igu yimaadana dabcan qof kuma dhicin taasna waxay tusinaysaa Umar bin Khattab iyo geesinimadiisii dabcan waana geesinimadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhowr sano ka hor hadda uu ka arkay uu lahaa ilaahu islaamka waxaad ku qoweysaa labada Umar midka aad jeceshahay haddaba haddii aan u galno rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo qaabka uu isagu hijrooday dabcan saan hore u soo sheegnay sana aan halqadii hore u soo sameynay markii ka soo waramayay al-Isra wal Mi'rajka dagaalada Badr markii ka waramayay saasoo kale sirada horta ma aha shay hal mar isku wada xiriirsan oo la oranayo shaygan markan waxana dhacay markan kale waxana dhacay laakiin soo warinaha kala duwan ee mid walba ay qayb ka waramayso inaga leenooga baahan yahay marka intaanu soo wada ururno aanu isku daba qabanno inaynu marka sidii dhacdo isku xigxigta aanu ka dhigno oo kale haddaba soo warinaha kala duwan ee faraha badan waxaan ugu soo qaadanaynaa aynu ugu horeysiinayna Aisha Ilaahay ka raali noqday oo kitaabka Sahih Bukhari ku soo warinaysa oo ka waramaysa Aisha marka gabadh aad u yar ah oo xusuusteedii koobaad iyo markay xogaa aqliga soo yeelanaysay ay marka soo kacaysay inooga waramayso oo ah waqtiga uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu hijrada uu sameeyay Aisha marka iyadoo arinta ka waramaysa waxay tiri Aisha marka waxay tiri ma xasuusto oo macnaha kuma aqliyaysanin ilaa waxaan aqliystay aniga oo hooyaday iyo aabahay ay labaduba muslim yihiin macnaha Aisha markay dhalaysay Abu Bakar mar hore isagoo islaamnimadii qaatay ay Aisha dhalatay marka Aishana waxay walaalo ahayeen Asmana hooyadeed Asma iyo Aishana isku hooyo maahayn laakiin isku aabi ahaayeen marka Asma oo Aisha ka weyn hooyadeed iyadu mushrikad bay ahayd oo islaamnimadii weydiiday in aqbasho waqtiga horena intan Aisha dhalin ka hor Asma hooyadeed waxa furay uu iska furay Abu Bakar markii dambe ayuu guursaday Aisha hooyadeed buu guursaday markaas Aisha waxay leedahay waxaan ku aqliyeystay hooyaday iyo aabahay oo muslimiina waqtigii Makana wax kale kama xasuusto ilaa waxaan xasuustaa rasuulka oo maalin walba soo booqan jiray macnaha xusuusteedii koobaad ee marka waqtiga ay gabadh dheerahayd ay bilowday qaado waxay ahayd waqtigii uu rasuulku uu soo hijroonayay Aisha marka waxay leedahay rasuulku maalin walba uu soo booqan jiray maalmaha qaar waqti habeen noo iman jiray maalmaha qaar waqti subax ayuu noo iman jiray markii iyo waqtiga rasuulka loo ogolaaday inuu Madiina u hijroodo ee saxaabadiina uu faray oo ku yiri Madiina u hijrooda ayaa Abu Bakar waxa uu marka u diyaarsaday geeli uu iyo hashi uu ku safri lahaa ee uu ku tagi lahaa Madiina markaas ayaa Abu Bakar rasuulku u yimid oo yiri rasuul Allah ana ii ogolow inaan Madiina aan u hijroodo markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam ku yiri sug waxa laga yaabaa oo sugaynaa inuu Ilaahay ina siiyo ogolaanshiye markaas ayaa Abu Bakar uu fahmay in ogolaanshiyaha uu leeyahay oo rasuulku leeyahay ogolaanshiye in la nasiyan rajaynaya uu leeyahay ayaa Abu Bakar u fahmay marka inuu isaga iyo rasuulku ay mar wada hijroonayaan israacayaan markaas ayaa Abu Bakar yiri rasuul Allah ma waxaad sugaysaa in aan kula saaxiibo oo macnaha safarkaas hijrada aan kula galo miyaad sugaysaa markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri ha
abubakar markuu arrintan rasuulka sal slam uu ka maqlay waxa uu diyaariyey markaa laba halaad buu diyaariyey siduu markii hore uu halka awr ka diyaariyey hadda iminka laba halaad buu diyaariyey runtii una fiirso hadda marka abubakar uu hasha uu diyaarinayo macnaha waxay ka dhigan tahay geelu dabcan waa saxaraha gaadhigii lagu mari lahaa iyo saxaraha wixii lagu mari lahaa weeye maadaama safarka dheer lagu geliyana waa in marka halaha iyo geelaas lasii quudiyaa cunto badan lasii siiyaa biyo badan lasii cabsiiyaa weliba milix la siiyaa si uu biyo badan u cabo abubakar waxa uu yidhi labada halaad waxaan sii quudinayay oon macnaha sii diyaarinayay muddo 4 bilooda 4taas bilood dabcan waxa weeye waa markii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu saxaabada u sheegay inay hijroodaan iyo ilaa inta isagu uu soo hijroonayay muddo 3 bilood iyo badh ilaa 4 bilood ku dhow ayaa markaa u dhaxaysay marka abubakar wuxuu bilaabay markaa inuu labada halaad uu sii diyaariyo sii quudiyo cunto badan sii siiyo laga soo bilaabo markii saxaabada uu rasuulku u sheegay ilaa markaa u dambeysay isagu uu soo hijroon doono bilowga hijrada ee saxaabada ay hijroodeenna waxa uu bilaabmaday oo waqtiga uu bilaabay ahayd sanadkii 13aad ee nebinimada bishii Dhulxijja haddaba hijradu maadaama ay sanadkii 13aad ee nebinimada oo bishii ugu dambeysay ee Dhulxijja ay dhacday dabcan Dhulxijja markay dhamaato bisha Muharram ay ku jirtana maxaa la soo gelayaa sanadkii koowaad ee hijrada la soo gelayaa marka maalinta uu hijrooday macnaha waqtiga uu rasuulku hijroodayna waxaan ka soo dhirandhirin karaa waxaa jira waxyaabo fara badan oo markaan isu geegeyno inoo sheegaya waqtigii uu rasuulku u hijrooday sababtoo ah waxaan horta aan hubnaa rasuulku markii uu hijroonayay inuu ahaa shakhsiyaadkii ugu dambeeyey iyo aan la odhan karin xataa qofkii ugu dambeeyey ee soo hijrooday ayuu ahaa waa sidoo kale maalinta uu hijroodayna waxay ahayd maalin Isniina waayo waxaa jira xadiis uu rasuulku oranayo waxyiga waxaa lagu soo dejiyey maalin Isniinana waan dhashay maalin Isniin ahna waan hijrooday haddaba xaqiiqooyinkaas iyo waxyaabo kale fara badan marka la isku daro la iswada kaashado dabcan cilmi baarayaashan casriga ah culimada cilmi baarayaasha ah ee casrigan jooga waxay markaa ku aadanayaan maalinta uu rasuulku hijroonayay inay ahayd 26 Safar sanadkii koobaad ee hijrada markaas Caaisha waxay leedahay maalintaas oo dabcan maalinta Isniinta 26 Safar maalintaas oo waqtigan uu yahay waqti ay aad u kulushahay macnaha waqti xilli duhura dabcan waqtigana carabiya iyo meel walba saxara oo kulul waqtigaas bacduurka ka dambeeya maadaama aad u kulushahay cidima socoto dhammaan dadku guriyooda ku jiraan waa xilliga waa la wada seexdaa marka maalintaas iyo waqtigaas oo dabcan sida u kulushahay ayaa qof baa noo soo muuqday qof marka madaxa duuban ayaa noo soo muuqday ilaa markii u dambeysay ee uu noo soo dhawaaday aanu garanay markaa inuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yahay markaasaan durba aan dareenay waqtigan rasuulku hadduu socdo in arrin weyn uu waqtigan u socdo markii uu rasuulku yimid ayuu ogolaanshiyo weydiistay inuu soo galo abubakar wuu u ogolaaday markaasuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam yidhi abubakar qof walba oo guriga ku jira dibadda inooga saar markaas ayaa abubakar yidhi rasuul Allah waa ehelkayga oo kaliya macnaha qolka dad kale kuma jiraan Caaisha iyo walaashii Asma oo kaliya ayaa ku jira markaas ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam yidhi waxa uu Ilaahay ogolaaday inaan hijroodo markaas abubakar yidhi rasuul Allah hooyadii iyo aabahay lagu furaya miyaa lagu ogolaaday inaan saaxiibka noqdo oo macnaha aan hijrada aad gelis aan kula saaxiibo aan ku raaco miyaa la ogolaaday markaas rasuulku yidhi haa markaas ayaa Caaisha waxay tiri inta kale Ibn Isxaaq baa ka waramaya Caaisha markaa waxay tiri waxaan arkay aabahay Abubakar oo ooyaya maalinta ka hor uma maleyn jirin dadku farxad inay la ooyaan markaas ayaa Abubakar yidhi rasuul Allah waxaan diyaariyay laba halaad baan inoo diyaariyay oo awrtii aan furi lahayn baan inoo diyaariyay marka mid kamidana adiga ayaa furay adiga raacaya markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam yidhi may awrka ma raacayo ilaa oon adigana aan lacagtiisa aan ku siiyo mooyee طبعا arintana akhlaaqda rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay kamid tahay oo dabcan isagoo rasuulka Ilaahay ah hadana inuu dadka intuu arinta uga faa'iideysto oo xoolahooda oo sidoo doona uu ka yeelo muusan sameyn jirin marka uu ka diiday in awrkii labaad inuu macnaha qaab free ah oo bilaash iska qaato Abubakar lacagtii uu ku khasbay inuu qaato marka waqtigaas Asma Caaisha walaasheed oo hore cunto u soo diyaarisay dabcan waqtigana Caaisha waa gabar yar iyadoo wax weyn ma qaban karto Asma se Caaisha 10 ilaa 15 sano ay ka weyneyd marka Asma oo awal hore cunto maxaa u soo diyaarisay oo markii hadda rasuulku uu ku soo kadiyay safarka ayaa waxa durba sameysay in cuntooyinka hore u diyaarisay hore isugu dardarto cuntadii iyo dabcan wixii ay safarka ay ku geli lahaayeen markii hore u diyaarisayna ay isku wada dardartay ayaa waxay weeyday maadaama sikadiisa arrintu hadda ay ku dhacday waxay
raashinkii ay diyaarisay wixii ay ku ridisay waxay afka kaga xir lahayd ayay weyday. waxay ku xidhay markay weyday ayaa maradii yareed ee dhexda ay ku xiran jireen sida suunka kale ay u isticmaali jireen ayay soo qaaday. laba haaf bay way kala dilaacisay. qaybna way ku xirtay dhexda ku xirtay suunhaan bay u isticmaashay. qaybtii kalena cuntadii iyo raashinkii ay rasuulka iyo aabaheed ay u diyaarisay ayaa afka kaga xidhay. arrintan oo dabcan marka dambe taariikhda u geli doonto oo laqabkeedu iyo naanaysteedu ay noqon doonto in loogu yeedho daatu nidaaqeyn macnaha asmadii labada suun lahayd. waqtigana abubakar ilaah ka noqdee waxa uu haystay oo waqtigaa uu lacag ahaan u haystay 5,000 oo dirham. ibn isxaaqna dabcan waxa soo weerinayaa abubakar intii uusan islaamnimada aqbalin ka hor inuu ahaa nin aad u taajira. waqtigaana wuxuu haysan jiray ku dhawaad 40,000 oo dirham ayuu haysan jiray. dabcan hadda waad dareemi kartaa haddii hadda ka hor 40,000 oo dirham uu haysan jiray maantana lacagta dhan oo haystaa ay 5,000 oo dirham ay tahay waxay ka dhigan tahay macnaha ku dhawaad lacagtiisii 90% waxa uu ku kharash gareeyay oo uu ku bixiyay islaamkii maruu adoomo xoreeyo maruu rasuulku wax uu ugu gargaaro. macnaha lacag hantidiisii 90% islaamka ayuu geliyay. weliba waqtigana abubakar uu soo hijroonayay ee rasuulka uu soo raacayna 5,000 markaa usoo hadhana sida u dhannayd waa uu soo qaatay oo hijradii bay ku soo galeen. marka waxaa la yidhahdaa markii rasuulka sal slam iyo abubakar ay hijroodeen ayaa abubakar aabihii abu quxafa la odhan jiray oo waqtigaa oday weyn ahaa dabcan islaamnimada aan aqbalin cadowga adagna ka mid ahaayo mar walba inankiisa ku jees jiray oo ku odhan jiray sideebaa diintan ku qaato ku odhan jirtay oo marka dambe ee maka la furtay kabacdi unbuu islaami doonaa. haddase laakiin waa cadow. markii haddaba abubakar uu tegey ayaa isagoo oday weyna u ahaa ma uuna indhalaa markaa waxa u yimaaday asma buu u yimid. marka isagoo ku jeesjeesaya aabihii oo leh muxuu ahaa aabbaha noocani muxuu ahaa aabbahan caruurtiisii labadiisii caruurta ahayd meesha kaga tegay isagu iska hijroonaya muxuu ahaa lacagna aan uga tegaynin sida ugu jeesjeesaya ayuu marka asma u yimid. asmaa marka waxay samaysay runta una fiirso asmaa bal hadda caqligeeda iyo iimaankeeda u fiirso dabcan waana ilmo yar hadda waqtigan asma markuu sidaa ugu yimid awgeed isagoo aabaheed ku jeesjeesaya oo leh aabbaha noocani muxuu ahaa caruurtiisii halkan kaga tegaya saaxiibka iska raacaya hantidii yareed uu xataa uu lahaa aana idinka tegine hantidiisiina sii qaatay muxuu ahaa. markaas ayaa asma waxay samaysay meeshii uu abubakar uu lacagta ku ridan jiray oo hadda uu lacagta kala baxay bay soo qaaday xogaa quruur wax yar dhagaxaan iyo carray waxbay ku riday marooyin kalena dushay kaga dudubtay. markaasay tiri may awowo lacagtii dhan muusan qaadanin wuu nooga tegay bal hoo taabo maadaama dabcan indhalaa wuu taabtay markaa culasii waxbuusa u yar dareemay. markaasuu yidhi waxaan moodayay inuu lacagtiina idinka qaatay. inkastoo dabcan asma ay tiri aabbahayo shilin muusan nooga teginoo wax walba waxuu doonayay inuu rasuulka sal slam uu ku bixiyo waayo anagu hadda makaan iska joognaa maka dhexdeeda dee gaajo iyo macal uguma dhimanayno dadaanu cunto iyo biyo ka helo ma weyno iyaguse safarkaas dheer bagelayaan marka ma garanayaan waxa ku dhacaya. saasuu marka lacagta aabbahayo usii wada qaatay. sidoo kale musnad imaam axmed waxaa ku jira xadiis uu ibnu cabaas uu leeyahay waqtiga iyo habeenka uu rasuulka sal slam hijroonayay waxaa jirta aayad ka hadlaysa aayadaasoo ku jirta suuratu anfaal aayadaasoo odhanaysa waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuthbituuka aw yaqtuluuka aw yakhrujuuka wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin. aayadaasoo odhanaya nebi maxamedow waxaad xasuustaa waqtigii kuwa gaaleed ay sida sirta ah u qorsheynayeen inay ku xidhaan ama ku dilaan ama ay ku saaraan oo magaalada ay kaa saaraan qorshe ay dejinayeen ilaahayna qorshe ayuu waday ilaahayna waa intaa qorshaha dejisay cidda ugu khayrka badan. aayaddan marka waxay noo sheegaysaa in reer Quraysheed markaas ay qorsheynayeen si sare ay u wadeen in saddexdan qorshe midun rasuulka ay ku fuliyaan ama inay xidhaan ama inay saaraan ama inay dilaan. haddaba waxaan isweydiinaynaa habeenkaas maxaa dhacay. habeenkaas hadda waxaa dhacay waxay isugu yimaadeen goobtii daaru nadwa la odhan jiray goobtaasoo dabcan ay mar walba isugu iman jireen sidii baarlamaan oo kale oo macnaha inta madaxda qabiilada u talisa inta isugu wada yimaadaan ay halkaas go'aamada ku soo saari jireen halkii daaru nadwa markaa ay isugu yimaadeen.